marka tacliintu waxay tahay waaqaana muxuu quality wuxuu yahay waaqaana waxa anagu aan aaminsanahay caafimaad ahaan markaan u fikiro waxa weeyaan quality-gu waxay ku xiran tahay the quantity. The quantity is the quality. haddii hadda markada muxuu waxa ku yaal 9 MCH baa ku yaal magaalada haddii 9 MCH magaalada muxuu inta la xidho kulligood hal cusbitaal laga sameeyo muxuu 10 dabaqa oo muxuu niman wadnaha qala ay joogaan kuwa muxuu kaliya qala ay joogaan oo muxuu yaa roon labada waxa weeye 9 MCH baa dhaama cusbitaalkaas muxuu 10 dabaqa marka waxa weeye muxuu yani tirada dadka muxuu caafimaadka u tagaya haddii aan gabdho geyno yar muxuu waxbarno oo tuulooyinka geyno waa ka fiican in dhakhaatiir aad muxuu ku haysid waaso ku haysto ku joogo cusbitaal ku joogo inaan jaamacad leenahay oo jaamacad badan leenahay wada dadku ay muxuu u sameeyaan critique waxaan Soomaaliya waxa ku yaal muxuu 80 waan ku gaalada Swedish ay ugu tiri muxuu Sweden iyo Germany iyo Norway hadii isku daro waxaan deganahay waddanka Sweden baan deganahay muxuu jaamacadahooda iyo kuwa sheegaysan Soomaaliya kuna badan marka waxay ka wadaan yani muxuu wax quality weyn ma haysan magac baad ka sheegaysan ma hay jaamacad meesha kuma haysan hada aynkaas ka laakiin anigu waa ka duwanahay waxaan uga duwanahay waxaan aaminsanahay arday xun baa jiray jaamacad ma jirto jaamacaddu hadduu qof ardaygu yahay arday mitadaya he can always deliver he can always perform marka waxaan idin sheegayaa jaamacadda halka samayseen oo dhisteen waa asaaska ummadda Soomaaliyeed mustaqbalkeena intaasaan ku horeynaya oo rabay inaad idin sheego inaad meeshaad fadhidaan ay tahay meel guul ah meel gogol aqooneed ah meel mustaqbal leh meel mujtamac laga dhiso inay tahay baan fahamsanahay marka qof kastoo aqoon-yahani inuu ku xidhmo oo in la shaqeeyo oo dareenkiina wax ka wadaago waxay ka mid tahay waa obligation waa waajib taasaan muxuu baan idin sheego muxuu laakiin macnaheedu maaha halkaagii fadhi maaha hada waxa weeyaan waa in jaamacaddan qurux badan oo hadda muxuu dalcadda aan soo fuulay oo muxuu taaga qurux badan oo daaraha fiican leh oo muxuu dhismaha leh waa inay muxuu samaysaa isbedel gudaha ah internal transformation oo aan aragnaa muxuu in aqoontii ay kordhiso in dareenkii dadku kordhayo muxuu in jaamacaddii ay mujtamacii ku midan tahay waxaan ka hadlayaa maanta qodob ka mid ah waajibaadka jaamacadda oo ah cilmi baarista jaamacaddu 3 shaqo ay leedahay oo loo dhisay gebigeedaba kow waxa weeye inay dadka aqoon siiso farsamooyin ay ku muxuu caanamalaan ay barto professional skills caafimaad computer Islamic studies waxay doontaa noqoto qofkii wuxuu soo baxayaa isagoo aqoon leh garaad fiican leh ay soo baxayaan maxay wadaagaan kulladahaas kala duwan dadka ka soo baxay farsamo ma wadaagaan laakiin waxay wadaagaan caqliga waxa la dhahaa intellectual growth maskaxda korimadeeda wadaagaan waa geedo baxaya geed kasta wuxuu leeyahay 3 mitir buu leeyahay laakiin midna waa tufaax midna waa orange midna waa moos laakiin waxay wadaagaan muxuu biseelka muxuu mujtamaca muxuu ku korayaan ay wadaagaan marka waa aqoonta qodobkooda waa aqoonta weeyaan qodobka labaad waxa weeyaan in mujtamaca ay u adeegaan ogaada jaamacaddu maaha muxuu heer chess ah oo meel fadhiyo muxuu aan cidna la hadlayn waxay ku milan tahay bulshada haddii aan ku milnayn la socan dareenkooda lahayn wax qabad ay ku jirin jaamacadaas waxa weeye jaamacad muxuu ku taala ingiriis ku taala kama duwana jaamacad shay kama duwana marka waxa weeye inaan isweydiino markasta mala yani wax relation is there any relationship with the community bulshada muxuu wax cilaaqada malana haddii bulshada cilaaqad lahayn marka muxuu waxaan gabnay kaalin weyn oo jaamacaddu ay lahayd waana samayn karaa taas sabab badan baa loo samayn karaa inta saddexaadna waxa weeyaan waxaan ku noolahay waddan dhibaatooyin ka taagan yihiin mashaakil badan muxuu hormarayso haddii aqoonta muxuu cilmi baarista wax soo saarka jaamacaddu muxuu maaha gole cuntada lagu cuno oo muxuu lagu xafido muxuu duruus lagu xafido sida quraanka wax xafidno kale maaha waxa weeye gole lagu abuuro aqoon lagu abuuro
haddii marka aqoon abuurkii maqan yahay oo inu xafidkii jooga keliya oo qofkaas buug nin kale qoray aynu akhriyayno isu sheegayno marka muxuu ahaayey aqoonteennii iyo garaadkeennii sidii hore u kordhimay marka maanta waxaan ka hadlaya qayb ka mid a saddexdaas arrimood aan sheegay mid ka mid ah keliya baan rabaa inaan taabto oo ah muxuu ahaayey arrinta aqoonta next adduunka muxuu waxa la dhahaa muxuu ahaayey noloshu waa nolol sideeda waa changing environment nolol isbedelaysa weeyaan meel nolol taagan ma aha wax kasta oo dhacaya waxaa dhacaya aragtidne muxuu ahaayey waxay leeyihiin muxuu ahaayey waxay ku xidhan yihiin wax iska dhaca oo sabablaan dhaca ma jiraan ya wajacalna likulli shayin sababa marka waxaan sabab lahayn ma dhacaan marka waxaa dhacay oo dhan sabab bay leeyihiin sababahaasi marka waxa weeyaan maxaa keenay iyo maxay keeneen waa labo cause and effect maxaa dhaliyay sababta what is the cause of that happening eventska maxay tahay iyo what is the effect of that maxay so in all the maxay qabay oo dhan hawshaan oo dhan waxa ka shaqeeyo dhan kulligood waa cause and effect markii aad maxay ay u shil ka dhaco meel waxa sabab waa taqaanin maxay haddii dheer dhacdo waxa loo qabtaa guddi baadha oo raba inay ogaadaan sababta waxay ogaanayaan inay ogaadaan maxay meeshuu dhib ka yimi maxay dhibka ka doonayaan inay xalliyaan oo midda dambe ayaan dhicin nolosha marka cause and effectiga ahi waxay u baahan tahay in ay maxay aqoon lagu kordhiyo marka cilmi baadhistu sideedaba waxa way qof raadinaya mushkilad inuu xalliyo mujtamacna mushkilad ma leeyahay mushkilad ka tagan yihiin waxaan ka mid nahay 48 waddan oo lagu magacaabo fragile states waddamada kelmadda fragile waa kelmad xoogaa muxuu ahaye dabacsan oo naxariis leh waxa weye waddamada muxuu yani dabacsan oo dhiban laakiin waa maxay ka wadaan waddamada burburay markii la hadlo marka 48 waddan oo ay ku magacaabaan adduunka waddamada burburay baynu ka mid nahay marka dabcan haddii waddan halkaa uu gaadhane wuxuu leeyahay plenty of problems يعني مشاكل aan dhammaan ayuu leeyahay marka muxuu ahaayey haddaynu dabcan raadino causeski sababta ma dhib bay noqonaysaa wax kasta wayna sabab bay leeyihiin mushkil kasta oo waddanka haysta waxay leedahay sabab bay leedahay in marka la raadiyo sababta marka aqoontu waxa weeyaan muxuu ahaayey abuuridda xalka sababta ama ogaanshaha sababta lafteeda haddaan sababta ogeyn xalkeeda muxuu ahaayey maad raadin kartid iyo cilaaqad ka dhexaysa lannu muxuu ahaayey wax kastaba waxbay saameeyaan haddii wax dhacaan waxbaa u sababa waxbay keeneen laakiin wax kalaa ku xidhan oo keenay oo muxuu ahaayey yani la leh relationship la leh arrintaas waxa weeye waa arrin u baahan aqoon abuuris bay u baahan tahay knowledge creation haddaynaan jaamacad ahaan macallimiinteennu halka joogta aynaan inakii ardaydeenu aynaan muxuu ahaayey abuurin aqoon waxaan noqonaynaa dad muxuu ahaayey aqoonta barta hadduu qof bartay dugsi dhexe iyo dugsi sare iyo macad iyo kama duwana jaamacaddii macad bay noqonaysaa haddii aqoonta barato keliya muxuu ahaayey waxay noqonaysaa muxuu ahaayey macad bay noqonaysaa next please saddex qaybood baan u qaybinaa muxuu ahaayey cilmi baadhista oo muxuu ahaayey in badan oo ka mid awood aw leedihiin aad samaysaan qaybta koowaad waxay dhahdaa muxuu ahaayey descriptive sifayn iyo sifee waxbaa dhacaya muxuu ahaayey markaynu iska wareysano muxuu ahaayey inta badan waxaynu soomaalida wax ku hadashaa waxa kala dhaho assumption male qofku odhanaya muxuu ahaayey gaalada markay ku yidhahaan 9 su-aal weydiisid konton waxay ku leeyahay ma aqaan lakin dadku mid kastaba jawaab ahayna qof aan weligii iskool gelin baad dagaal dhacday ka weydiisa waxbuu kuu sheegaya wuxuu ku leeyahay taasa sabab ah ama halkaas baad u malaynaya waxay ila tahay aniga say ila tahay maxay marka waxa weeye muxuu ahaayey waxaa maqan sifayntii dhabta ahayd ee mushkilada ayaa maqan hadda masalan muxuu ahaayey waxaa ka dhacay abaar baa hadda waddankan ka socota abaar baa socota there is a drought waxaa biyaa la dhaaminaya arrintaasi muxuu ahaayey ma idin saamaysay jaamacadda guddi ma u qabateen muxuu ahaayey arrintaa baadho oo ka sameeya muxuu ahaayey si wan u safeeya bal soo xaqiiqada ogaada maxaa dhabka ah
abaarta sheegay maxaa dhabka ma haynaa mise waa male un baan ku soconnaa inta badan male wey haddii aan dhabta ogaano oo ogaano horta waxa dhacay hadda waxa ku salaanaysa sababtan aan ogaano xiriirka aan ila leedahay nolosha bulshada aan ogaano waxaa laga yaabaa inaad markaa wax ka oran kartid sida loo xalin lahaa mushkilada mustaqbalka ma u baahna inaan xalino mustaqbalka maxaa yaabaa abaarahan isdaba joogga oo cycle-ka maxay waa silsilad socoto oo kale wey cid hadda maxay barnaamij wadda xal wadda oo tira xalkaasaan helo hadda raadinaa ma muuqdo markasta waxaan taangaal baan dhaaminaynaa cuntaan guraynaa dad baa qaxaya oo la qaadaya kuwaa la soo dhaweynaya laakiin abaartii lafteedii iyo cimiladii iyo environmentkii keenay ma isma weydiin marka haddii aan muxuu ahay sababaha la sifayn waxna kaa qaadamaysa waa sifayn keliya or guddaa la dilaya afar qof oo macallimiina waxaa la sameeya muxuu ahay طبعا qaanuunka jaamacadda qaanuunka cilmi baaris waan soo maraa oo muxuu ahay markaad yani baaraysid aad sabab ogaanaysid sababtii waxaa muxuu ahay marinkii loo mari lahaa baad raacaysa wadday leedahay waddadaas loo maraya horta marka aad qorsheynaysaa markii aad methodology methodkii baad qorsheynaysaa dadna waad baaraysaa aniga waxay tahay muxuu arrinta abaarta jaamacadaha soomaalida muxuu ahay ku yaalla puntland iyo kuwa meelaha kale ku yaalla waa waajib saaran inay wax ka ogaadaan inay sifeeyaan ogaadaan xaqiiqadeedu maxay tahay cause inay ogaadaan the cause the effect abaartu maxay keentay the relationship maxaa la xidhiidha oo kale oo muxuu ahay abaartaas daba socda oo muxuu ahay ku xidhan masalan markii roob dii waayo maxaa ku xidhan waxa ku dhiman masalan xoolii dhamaadaan masalan ka soo qaad isku xidhan yihiin xoolaha dhamaadkoodii muxuu ahay abaarta isku xidhan yihiin in dadku guuraan muxuu ahay ay tuulooyin iyo muxuu ahay magaalooyin degaan waa isku xidhan yihiin in muxuu ahay dad dhintaan qaarkood waa isku xidhan yihiin in abaartaasi ay noqoto muxuu ahay mid dadka isku dirto oo colaad ka dhacdo in marka la ogaado abaartaasi marka muxuu ahay waxna waxa weeye sababtii keentay iyo waxay iyadu keentay laakiin cilaaqaadka muxuu ahay relationshipka ay keentay xiriirka la dhexeeya waxa weeye wuxuu ka badan yahay ciidaas ka badan yahay arrintan buugaad soo galatay maa ku sheegaya no ma xaashiban ka akhrisanayna waa maya waa maxay waa abuuris wey maxay hal abuuris wey inaad idinku abuurtaan oo u noqotaan adduunka dad cilmi iyagu keenay haddaad sifaysaan abaartaas ku taal puntland ka dhacday maanta ka dhacday haddaad sifaysaan oo qortaan oo article ka soo sifaysaan waxa weeye aqoon cusub baad abuurteen waxaa knowledge creation knowledge la isticmaali karaad samayseen oo la adeegsan karo yani waxaad samayseen aqoon xal lagu raadin karo marka muxuu ahay waa ha noqoto sifayn ama noqoto muxuu ahay case study xaalad dhacday bas hadda ka soo case study baa adduunka markaa waxaa aad loo isticmaalaa case study waa maxay hal qof baa wuxuu noqon karaa u noqon karaa bulshada macallin noqon kara xaalad dhacday baa waxay noqon kartaa cilmi dhan oo dadku bulshada ay wadaagaan masala ka soo qaada gabdhaha muxuu ahay kufsiga ka socda muxuu ahay puntland example dhibaato weyn baa dadka qaylo weyn baa maxaa ka socota طبعا muxuu ahay maaha wax 100 qof la kufsay maaha waa maxay 3 qof 4 qof 5 qof baa laga yaabaa inay yihiin laakiin the media midka wuxuu noqonayaa milyan buu noqonayaa ma sameynay wax case study ah oo ah muxuu inaan ogaano xaaladda gabadhaasi ku sugnayd waxay ku sugan tahay waxa ka raacay muxuu ahay dadkii soo loo galay diiniyan maxay tahay xaaladdaas ma sameynay sifaynteeda ma sameynay qof baa la dilaya dadka lagu dilay magaalada lagu dilay ma sameynay wax cilmi baaris oo muxuu ahay sheel ka dhacaya muxuu ahay wax kasta oo muxuu ahay hadda keeskii fudlada ka dhacay diyaarad maxaa markab dhan muxuu ahay aad badbaadiseen si la sheegay xaaladaha noocaas oo kale oo bulshadu sameynayso ama hadda qato ama muxuu ahay ama dhib ka soo gaadhay ma sameynaa muxuu ahay case study oo muxuu ahay xaaladahaas ma baadhna waa qodob muhiim weeyaan dugsiga hoose dhexe waddankeena muxuu ku yahay masalan unicef waxay tidhahdaa 70% ilmaha soomaalida ee gaadhay da iskool ma aadaan ma leedihin muxuu ahay education college ma leedihin education ya waa leedihin soo ma arrintaasi ma tahay su-aal muxuu ahay ay wax ka odhan karaan aqoon la weyn maxay ku dhacday in 70% ardayda gaadhay iskuul gaadhay ay u aadi waayaan iskuulka oo Kenya ay tahay 100% oo Ethiopia ay tahay 100% oo Ethiopia Kenya qofka muxuu ahay iskuulka la geeyay aabihii loo tagay la xidhayo
halkana muxuu ahay 70% muxuu ahay aan tagin aan laba is weydiinayn arrimahaas waxa way marka mushaakilka innakana haysta oon cid kale dan ka lahayn sodonkii soo dhameeyay hal shilin kuma ay bixin hay'adaha caalamiga tacliinta ku bixin lacagna ku bixin no ma isku bediseen ma jaamacad diseen ma ardayga muxuu ahay jaamacad ka baxsheen waxa way muxuu ahay ahamiyad weyn waa kay wixii ah nolol celin dadka dhimashada waxaas ka hadlayaan laakiin marna muxuu ahay development-kaaga waxay shaqo ku leeyihiin marka inaan is weydiino maxay muxuu ahay boqolkii 70 soo dhawaadi waayeen وارن بودلاند محاي مركي لا أبوري بودلاند وحي هاي وحكي بحي قالوا هاي سكول كذا بقول ما دمين لا سيل نوع حكي بحي محاي واحد تمام كله مركب محاي يعني وارن كلهم ما يسمعين لكن متى هاي كل ما سميت محاي قولي أنت ده تكون تلاقيه أما الدجمال مع عاصمة الكلية مستوى محاي والدجمال تورين كمحاي بودلاند قاعد كود 80% تورين كين ما لها سكول ما لها قاسم هاي قبل كان بدي مركب حوي مركب إيش شو متى هاي اللي باتوينا شباب كل هذا مركب إني حق من الأولى هي إني أبورته أقون وقعدوا صابته إفكتيجا cause and effect يليش يوحد ليه ومركب لحول حل كذا سواء لو تود لحود باتلا كذا عطا واحد قبل مركب درست شيء درست إفكتيجا أكتد وحللك أكتد واحد هلسات تطلع حق لهلسة طبعا you can so that is the third pillar ودحات كصدحات اللي هي جماعة ليهين وأقوان أبوريس وبير أقوان تو الماس وبير واحد بس قبل ثانية واحد عشان لكين يكلوي ولا عنية بين مليبين عشان بس كينسا ولا عنية ما في عنده تذكر عنية وعبيان وكل شيء صيان ومحمى لكن ما هم هاي ما هاي يعني ما لها دلانكي بيرتا إلى هاي ومحصول خلاص بحثي أدوب خلاص بحثي ما لها هاي قلب كاب ما مهم وين وحن كلو ما تاك كسي حوا كسي علوس البارس كذا نوع كذا إكسبلورتد أما هاي أما حق أقال نوع تام واحد عاي إيه سفاوي تقول واحد عاي أرد كفاية يسوع سفاه وحكبره ومحمو هاي هجاش تنوع حوالي محمو هاي أدوق محمو هاي أبور محمو هاي نظام محمو هاي كسميسيد أقوام كسميسيد وأنا كدول شوقي كانوا محمد أدوات كدول شوقي مثلا محمو هاي دباتك أبارتا وداعية أبارتا وسعتاي إنكم بيننا كين ما ينقشين ما كان البارس هو دون إن أسمع السيرش لكن ما كي أي حالة تجنين أو واحد موجود أي كوتشين أي هين وأدوق ما كان سميس الحالة محمو هاي علم بارسات waxaan muuqan aad ku baarisid waxa baaritaan xog raadin baa lahaa mesela annagu xagga caafimaadka waxaan eegnaa maxay dadka xanuunkaas qaba iyo dadka aan qabin maxaa u dhaxeeya maxay dadka beerka u dhinta xanuunkaas u dhintaan mise wax kale u dhintaan marka waxaad raadinaysaa maxay dad baad dabagelaysaa maxay waxaad eegaysaa boqol qof xanuunkaan qabin iyo boqol qof qabta xanuunka ay qabaan baad eegaysaa mesela waddanka waxa ku badan halka wax ku badan مثلا maxay malaria ku badan puntland waa ma lahayn bosaas ma lahayn kanaaca ma lahayn hadda waxay noqotay xala kanaaca noqotay laba muxuu ahay nooc kanaaca baa yaala oo labadiiba muxuu ahay degan yihiin waa degan yihiin waxa la chronic degan maxaa ugu wacan waxaa leedahay kulliyad caafimaadka baa leedahay ma la ogaay sababta ay kanaacaasi maxaa meel bad ah halkan oo kale kanaaca muxuu ahay labada nooc oo kanaacada keenay maxay u bixilaadahay oo u tagilaadahay haddii aad baadhaan oo heshaan xalka heshaan halkaas soo baxo waxa laga yaabaa inaad muxuu markaa u geysaan halka cidda leh awoodda fulinta ood kala doontaan just one example inaan maxay aan sameynaa marka muxuu ahay waxaan sameynaa muxuu ahay baaris la bas aan case study waxaan xalay muxuu ahay cohort study and case control study مثلا muxuu ahay laba qof oo markaan shay eegayno waxaan isaga dhignaa qof muxuu ahay ka soo qaado waxaan baarinaa muxuu ahay xanuunkan cagaarshowga ma keenaa muxuu ahay beerka muxuu ahay imisa beerka muxuu ahay u baabi'iya marka waxaan eegaynaa dadka beerka muxuu ahay u baaba'san yahay waan eegaynaa imisa qabta xanuunkaa qabta iyo imisa xanuun kale qabta waxaa ogaada haddii 100 beerka laga hayo oo muxuu ahay masalan muxuu ahay 25 ay qabto cudurka cagaarshowga
labaatan shan kale xanuun kale qabto waxaan markaa beerku ma keeno keligii maaha wax u gaara beerka maaha haddii laakiin 90% ay qabto cudurkii cagaashu qabto oo 10 kaliya dhowr cudur kale qabaan maxaa kaaga soo baxay halkaa in xanuunka daba yaalla oo sababta u ah kooska beerka baaba ku dhacay waa effect yaa koos u ah cagaashu qaba مثلا واكزامبل مثلا taas kale marka in muxuu ahay aan ogaano kuwaas oo kale waxa muxuu ahay waxa loo experimental research cilmi-baarista muxuu ahay yani muxuu ahay tijaabada waa tijaabo marka tijaabada laba nooc weeyaan waad maqasheen waxa la yiraahdo random sampling random waxa weeye muxuu ahay waxaan adigu awood ku lahayn muxuu ahay qoratuur baa dadka ku xulanaya qoratuur ama meesha tagay waxaan ku xulanaya qoratuur baa ku xulanaya waxa la yiraahdo random adigu wax awood oo aad ka sifikatay dart aad doontay maaha taa waxa la dhahaa marka waa experimental quasi-ne waxa ka maqan keliya randomkii مثلا qof maay laba daawa ku eegaysid hadday ku tahay in hal daawa aad u fiican tahay qofkiina aad u liito random kuma qaadan kartid marka value-gaaga wax gaariyaan qofkii marka waxaad u samaysaa dhib aan aad og tahay baa marka ku imaaysa marka kuwaas oo kale random kalimaysid si kala baaraysa marka waxa in la ogaado waxa random loo sameeyo waxaan random loo sameeyay inaan ka ogaano haddii mesela aan baarayno muxuu ahay dugsiyada hoose ee Boosaaso dugsiga hoose carruurta dhigata imisa ka yimid magaalada Boosaaso imisa ka yimid baadiyaheeda for example marka waxaan sameeyaa random aan sameeyno boqol school waxaan qaadayna muxuu ahay 6 baan waxaan qaadayna mesela ka soo qaaday by random iyagaan baarayna ogaayna muxuu ahay haddaan lixaas si fiican oo random oo nidaamkii randomka aan raacno waxay matalayaan boqolkii waa aqoonta cilmi baaris ku shaqeysa boqolkii adoo boqolkii baaro kale weey laakiin lacagtaas baad bixin kharashkaas ma aad gelin waqtigaad ma aad gelin waxaad gashay muxuu ahay waqti yar oo si cilmiyeysan baad muxuu ahay in yar oo kooban weeshay laakiin maxay matalaysaa boqolkii bay bisinaysaa marka randomka noocaas ku raafacaya dabana xogaysa muxuu ahay carruurta muxuu ka timi baadiyaha muxuu ahay yaa u jooga ma waxa keenay waalid iyagu keenay mise muxuu ahay dad kala haya ilmo badan inta halka lagu hayo oo dad keenay baa jooga waalid loo keenay qof loo keenay aan waxba ahayn adeer u ah qaraabo yihiin muxuu ahay marka in aan ogaano waa maxay waxyaalaha muxuu ahay saalaha tacliinta inaan ogaano oo muxuu ahay ilmaha muxuu ahay loo keenay ma waxa la keenay gabdhaha la keenay mise wiilasha la keenay kaliya marka muxuu ahay wax kasta 5,000 oo mushkilo oo haysta wadankeena oo mid kasta u baahan tahay ilaahay ay taafta ya bayalla oo macallimiinta iyo ardaydu ay inta ka wada faa'iideystaan ay aqoon abuuraal noqon karaan oo si university ay noqon karto beer noqon karto for idea creation for knowledge creation lacagna maaha ogaada it's not maaha lacagta maaha waxaad moodaa cilmi-baaris lacag tahay maaha kuwa hadda isu sheegay kulligood almost waxa ku bixmayaan maxaa ku baxaya waqtigaaga maskaxdaada rabitaankaaga xogaado muxuu ahay intaa magaalada ku aadiyo transporta in la eg meel fog aad maysid halkaa waxa weeye muxuu ahay kharashku waxa weeyaan waa the least problematic wax ugu sahlan oo dhib noqon kara laakiin maxaa inta kale maxaa maqan waa maxay waxa muxuu ahay maxay la maqan cilmi-baaristu gudoomiyaha jaamacadda halku fadhiya bikul ixtiraam waxa weeye muxuu ahay waxaan bartay afartan sana shaqeynaya intaan shaqeynaya waxaan bartay muxuu ahay waxa cilmi-baaris kaxeeya oo dhaqaajiya hoggaamiya waa maamul governance research is created through governance qofkii sameeya muxuu ahay paper sameeya waxaan siinaa promotion $1,000 baan siinaa qofkii aan waxba sameyn 5 sano ila joog maysid nin muxuu ahay maxaa la dhahaa awalta markii ayaan hadal lahayd maxaa la dhahaa ya عديسيمو نعديسيمو مرة نعديسيمو ما دوني بورن كذا marka waa muhim hadii marka maamulka lagu sameeyo oo cilmi oo asmahay bishii mar taswiiro oo fariista halka maanta qadada ka bixinay wada cilmi baaris waxa qoraysa qora believe me you will get in no time xasuusaa cilmi baaristu waa maamul 90% 10% waa maxay aqoonta muxuu ahay macallimiinta arinta waxa idin sheegay oday waxa idin sheegay muxuu ahay afar sano maxaa ka soo shaqeeyay hay'adaha caalamiga ah muxuu ahay oo arkay cilmi-baaris sameeyay qoray ilaa waxaan qoray 85 international publications
waxaan ku qoray kulle maamulkaasaan ku qoray dadaalkaas ku qoray PhD-gay waxay 6 beebar bayd kaliya 6 kaliya laakiin ma ahayn muxuu ahaay marka waxa weeye muxuu ahaay in maamulku uu isagu hogaamiyo oo haddaad muxuu ahaay president maanta muxuu ahaay jaamacadda muxuu ahaay madaxdeedu aad rabtid inaad jaamacaddan bedeshid maanta oo imaatinkenaas uu abuuri karo cause and effect iyo relationship hadduu abuuri karo cilaaqaad waxa weeye inaad muxuu ahaay guddiga jaamacadda u fadhiisto waa wara guddi cilmi baaris abuuro barinto oo guddiga cilmi baaris loo yeero oo ninka ugu muxuu ahaay shahaado fiican laga dhigo madax laga dhigo oo yahay qorshe keen abuurid kale maaha qaar baa guddiyaal baa 10 sano guddiyaal soo guddi ah qorshe keen oo la fadhiisto oo uu akhriyo macallimiinta oo bil 2 bilood ka bacdi hay'ad xagga xamarayaan oo hal 5 bilood ka bacdi la weydiiyo oo la yaama adiga waa ka qaadnay ilaanu waxaad cadaysin baad haddii nidaamka lagu socdo waxa weeye maxay imanaya isbedel jaamacadeed hadday jaamacadena waxa loo haystaa inay maxay dad fiican joogin dad aqoon joogin hadda adduunka waxa ranking of IQ waa taqaaniin waa maxay qofka yani aqoonta garaadkiisa thank you so much garaadkiisa waxa yidhaha waddankii garaadkiisu ka yaryahay IQ ka yaryahay 70 لكن نذكر الناس في القرآن وواحد سألوا أدوك ممارس الجاري وياه مثلا معي دي جمعتنا معي مدرس أي معي دكتور اللي سمعني مرة إن شاء الله كلها مرة أو البايس وأيضا marka haddii aad muxuu ahaay idinku aydan muxuu taabushahaas nolosha u gelin ma soconaysa next please cilmi baarista waxa weeye marka laba nooc baa la sameeyaa cilmi baarista waa taqaanid waxaan ku aqri waxaad taqaanin weeye midna waa quantitative waa tiro midna waa qualitative hadda waxaan wadaa waxaan ka wadnaa aanu imi inaan ogaado talaalka muxuu ahaay basaaso oo caruurtu muxuu hoos ugu dhacay 3 magaalo la yidhi muxuu ahaay magaalooyinkii buu hoos u dhacay talaalka marka 3 magaalo soo qaatay gaalkacay waxaa leeyahay muxuu ahaay basaaso muqdisho iyo hargeysa waxaan 3 magaalo haddaba baaro aan ogaano waa maxay kooska caruurtii u qaadan lahayd talaalka u qaadan lahayd xalku muxuu yahay dabeedna waxaan sameynaa project baan sameynaa muxuu ahaay halkaas lagu hirgeliyo marka waxaan sameynaya muxuu ahaay labada waa sameynaya quantitative iyo qualitative waa sameynaya waxaan sameynaya focal group discussion waan sameynaya waxaan sameynaya key informant interview oo dad madaxa baan muxuu ahaay wareysanayna waxaan wareysanaa hooyay baan wareysanayna iyo muxuu ahaay survey oo caruurta aan eegayno aan leenahay kaadhkaagi meeyey natus maxaad qaadatay aan baarino arrintaasi waxa weeye muxuu ahaay waa markaan aan muxuu ahaay ka shaqeynayno muxuu ahaay quantitative-ka waa nambaro waxaan computer baan gelinaa dabeedna muxuu ahaay waxaan helinaa muxuu ahaay tableski iyo graphski iyo wixii baan helinaa wax mushkil weyn maaha laakiin midda ah qualitative-ka waxaan sameynaa hadda waxaan ku duwaynaa mobile codka qofkaan la hadlayno kuwa shaki waxaan gelinay mobile baan gelinay mobilekaan ku duwaynaa marka muxuu ahaay yaa noo sameynay waxaa weel reer puntland oo reer baasaba cilmigaas yaqaana oo xarfaana baa sameynaya maaha marka maaha markii ay soo wareystaan bay qorayaan markaas waxaa la dhahaa transcript waxaa la qorayaa wixii ay dhegaysteen oo qofka hadlaya uu dhegaystaa baa si fiican loo qoraya waa la daabacayaa waxaa computer gelinaysaa waa la soo baxaysaa waxaa marka waxaa nidaam baa aan ku xalino oo ah muxuu ahaay markii aad qortid baad waxaad sameynaysaa waxa la dhaho code baa u sameynaysaa waa maxay maxaa ku jira mid kastaba waa maxay kelmadaha muhimka ah arrimaha muhimka ah qofkaas ka hadlaya muxuu yahay waxaa la dhahaa codes iyagaasaan muxuu ahaay aan qoranaynaa 20 30 qofkii baa qoraya dabeedna waxaan eegaynaa markii aan codeka ogaano waxaan soo eegaynaa grouping iyagaan group garaynaa imisaa islahayn waxaa laga qofkaas siduu ka hadlay muxuu ahaay dhibaato muxuu ahaay waqti ma haysto qof kale ka hadlay mar dambe qof kale ka hadlay waqti ma haysto marka waxa la wixii waqti ma haysto yidhi iyo waxa la wixii yidhi masalan daawada waxay keentaa in aan muxuu ahaay lagu dhalin oo kale iyo wax la mid ah waxaan sameynaa group baan sameynaa haddana waxaan sameynaa markaa aan groupka sameyno themes baa la dhahaa marka waxa weye muxuu ahaay waa maxay transcript coding grouping ama waxaan dhahaa categories sorry let's use the word categories
categories and themes afar stage baan marnaa markaa themes waa maxay nuxurkii waxaan ka bartay muxuu ahay cilmi baarisan maxay tahay tobanka qof aan la hadlay oo la sheekaystay maxay siiyeen muxuu ahay aqoon u kuliyeen that is the themes waa muxuu ahay waa nidaam standard oo aad u samayn kartaan si sahal dadku isku afku ku hadlaa halkan si wanaag muxuu ahay waa sahal Soomaaliga anda waxaan ku qornaa question waa Soomaali ingiriis baan ku qornay dabana waxaan u jeednay muxuu ahay Soomaali u bedelay qofka la hadlaa Soomaali ku hadlaya waa muxuu ahay waa nasiib weyn wey toban waddan oo Afrikaana ayaa waxay leeyihiin Google Translation Soomaaliya ka mid ah 2,000 laga hadlaa 2,000 af laga hadlaa Africa 2,000 languages only 10 are in the Google marka wax ma yani marka inako hantida haysana inaan ku shaqeysano waa shay waajib weyn marka muxuu ahay labadaas arrimoodba waa labadaas samayn kartaan muxuu ahay waxaan muxuu ahay barnaamij baan la kabtamay la sheegsanayay markaan soo kaxeeyey aan aad ugu mahad celinayno isagu xalaatan aqooneed soo keenay waxa weeyaan muxuu ahay jaamacadana kulliyadda muxuu ahay shareecadana muxuu ahay ka yahay diin ka yahay waxaan muxuu ahay gabdhihii halkan ميدا واحد يقول صغيرة كرسي اللاند ودن كرسيها ما نغبطها ما غبط والله اني واحد يسوي ما صدح من القوانس ما غبطها لكن الناس كلها وابصنا we are keeping quiet محمد مثلا اقول له ان ما صار ما شيء بس كده جامعته هنا كهدلان وحكى قران تردي بتاعي aqoontii shariicadu waxay taala jabaayta Allah ila faransiga doontaan baad duka keli kartaan meel kasta marka in aan dadku ogaadaan hadda dadku ma ogaa nimankan waxa sameynaya maxay istaahilaan ma la xilay istaahilaan ma la wajisa istaahilaan ma la dilay istaahilaan maxay istaahilaan adna muxuu ahay yani qofka shacabka caadiga ma ogaa qofku innaka wadankeena 70% wax lama akhriyo waxaan loo qoro marka muxuu ahay maxaad ka fariisaa qofkaas in ogaado wax ma ogaadno kulli waa tii ahayd bas muxuu ahay waxay tahay waxaan filayaa marka in arrimaha jaamacaduhu ay ku leeyihiin oo ay mujtamaca albaabka ka xidhan not close your door from society haddii kale waxaad noqonaysaa jaamacad ka xidhata albaabka muxuu ahay mujtamaci waan mashruuca jaamacadda u furfurannahay albaabkan u furan yahay xarumaha doodaha adduunka lagu sameeyo waan furan waa sida maxaa culimadii hore diinta masaajida maxay soo jireen xiwaar niqaash oo fasax markaan tago masar tago azhar baan tagaa markii la tukado maqribka waxaa jira muxuu ahay wax kasta weydiinaysa nin baa imanaya saas dadku wuxuu sheegay kaas wuxuu sheegay kule waa sheegaya wax kasta muxuu ahay waxa laga niqaash baa laga marka inaku jaamacadna waxa weeyaan waa xarumaha adduunka aan muxuu ahay xorta u ah inay yidhaahaan waxay doonaan طبعا وضعي aan ku nooshahay waan ogaataa maxay waxa doonta kuma hadli kartaa laakiin waa maxay wixii aqal gal ah oo maxay soconaya oo danta mujtamaca oo maxay inaad ka hadashto loo baahay marka arrimaha mujtamaca ina waan u farado doona waan albabada ka xiran jaamacad waan noqon maxay gule xiran waan noqon gule furan bulshada u furan maxay loo tagayo loo maxay la hadlay next please علم بارستو waxa weeyaan lagama maarmaan qofku moogtahay muxuu ahay waxna waa waxaad ka maartid waxna waxaad ka maarmin weey mashaakilka guriga yaala cid kale ku xalmayso dhibaatooyinka deegaankaaga cid kale ku xalmayso aqoonta cid kale ku xalmayso dhibaatada caafimaadka cid kale ku xalmayso and so on and so forth marka in aad muxuu ahay cilmi baarista ay tahay muxuu ahay hawlgal laga maarmaan waan ogaanaa yaa hogaamiye cilmi baarista jaamacadda dad marba kelmadda jaamacadda الجامعة والمعهد العالي maxay kala duwan yihiin المعهد العالي waa sameeyay المعهد العالي iyo الجامعة maxay kala duwan yihiin waxay kala duwan yihiin midna aqoon buu abuuraa midna barasho kulli ku taagan yihiin midna aqoontu abuuraa barashadii wax ku daray aqoon abuuris midna waxa weeye wuxuu ku taagan yahay oo laga rabaa inuu muxuu ahay dad farsamo yaqaan oo fiican soo saaro oo shaqaysta marka hawsha jaamacadda ma ku lamaan waa xirfadda cilmi baarista in la barto oo laga shaqeeyo mana aha wax dhib ma everything is online jaamacadda jaamacadaha hadda adduunka online ka
جوجل هو معي ومعي وحكي يلا بقول إنجين أو علمي قال قبل حكي يلا ومثل كسر معي فري فيها بلا شيء for free مقال ماشي هذا معي البارسة وحن لنا هاي جنجرو steps كو دباتهم حياتها لابو برو حياتها دباتهم حياتها هذه حال مكايشيد حالك باهي يا باهينية bulshada iyo yaan u geynayaa wadamayntii waxaan u geynayaa dadka ay taladu ka go'do siyaasiyiinta wasaaradaha hay-adaha si ay maxaan u geynayaa aqoonsadaan aan u geynayaa may waxaan u geynayaa inay u bedelaan hawlgal istaraatiiji ah iyo hawlgal siyaasadeed iyo waxqabad haddii cilmi baaristii aqoonteedii iyo xulkeedii ayan uusan isu bedelin ficil bulshadu ka faa'iidaysto marka meel dhaxaaya maxay dhankii maxay fadhiisanaya maxay heli mayno maxay meeshan doonayna inaan gaadho arrintaas waa maxay markaas taas keenaysaa maxay abuuraysaa waxay abuuraysaa adoo maxay aan weligaa wasiirka u tegin aan xil la lahayn cilmi baaris baan wadaa nabaday way kan iga qaad minka yeele kuwa jamaa maxay kuwaas dhaafi weli waa aan leenahay contact relationship links haddii aan links lahayn mana gelayno iyagana ma soo gelayaan marka muxuu ahay jaamacaddu waxa weeye marka networking waxa la dhaho networking ogaada waxa muxuu ahay nolosha waxa weeye networking waa very important qofkii aan network lahayn muxuu ahay haddii masalan hadda mushkilad iga haysta magaalada yaa yaqaan ninkaas muxuu ahay mushkilaas keenay muxuu ahay network waxa hebel bale xasan ha weydiiyey magacaaga muxuu ahaa ibrahim la weydiiyey ibrahim baa muxuu soo xalinaya مثلا محاي مالك حاجة حاجة بنحن وتقدم بنحن ودي بنحن مثلا ما كان قف له network بدن له he can solve problems he can link ما كان يعني يلتان كل كده جماعة معلم كحوية و network session وان حل له هاي ده حل له هاي ولا قدام جول كأقون ولا دقمة كأقون وكان حافظ ما نحكي أقون ونك بيها كنا ومعلم جماعة كده if you don't have that contact cilmi baaris waxa tahay muxuu ahay adhow wuxuu soo saaro aan cidna iibsanayn yaa ka iibsanayn laguma yaqaan bay ma aqsanaya muxuu ahay haddaad xiriir leedahay laakiin you have the link to pass the messagekii meeshaad aad geysaad cilmi baarista marka laba nooc baa loo qaataa laba nooc waaweyn weeyaan nooc inaku hadda muxuu ahay runtii ma dhiirigelinayno oo maxay muxuu ahay qofka muxuu ahay maxaad cilmi baaris u samaynaysaa maadadaasaan baadhiya waxaasaan baadhiya maxaad u baadhaysaa I like it waa jecelahay waxaan jecelahay wey inaan ogaadahay wax ka barto halkaas muxuu yahay halkaas ma xuma waan fiican yahay inaan waxa arrintaas aan baadho oon barto mushkilad waddanka ways may anaa jecel it's my own hobby my own interest waa wax fiican wey laakiin muxuu aqsanaya muxuu ahay haddaad xiriir leedahay laakiin you have the link to pass the messagekii meeshaad aad geysaad cilmi baarista marka laba nooc baa loo qaataa laba nooc waaweyn weeyaan nooc inaku hadda muxuu ahay runtii ma dhiirigelinayno oo maxay muxuu ahay qofka muxuu ahay maxaad cilmi baaris u samaynaysaa maadadaasaan baadhiya waxaasaan baadhiya maxaad u baadhaysaa I like it waa jecelahay waxaan jecelahay wey inaan ogaadahay wax ka barto halkaas muxuu yahay halkaas ma xuma waan fiican yahay inaan waxa arrintaas aan baadho oon barto mushkilad waddanka ways may anaa jecel it's my own hobby my own interest waa wax fiican wey laakiin muxuu ahay meel muxuu ahay looga baahan yahay muxuu ahay maxay ahayd soo xijay meel hool looga baahan yahay wax ka wato muxuu ahay haddii aanan mushkiladii dadku u baahnaayeen ayan ahayn waxaad jeceshahay cidna tagi maayaan that is good in UK as good in muxuu ahay America dadka lacagta haysto oo muxuu ahay dadkooda qaarkood ay habeen maalin wax kale darsaan oo aan loo baahaynba waa ogol yihiin laakiin noo kale muxuu ahay waxaa la dhahaa problem based learning waxaa la dhahaa implementation research waa cilmi baaris ay salkeedu yahay fulin wey haddii aadan cilmi baaris aadan muxuu ahay aadan hirgelinayn marka muxuu ahay ama wax hirgelay ay noqonayn marka ma aha cilmi baaris muxuu ahay
marka uu jaamacadda maxay oranayso waxaan sameynaa cilmi baaris haddii se guddoomiye yidhaaho waxaan abuurinaa cilmi baaris guddiga cilmi baarista hanoo keen maxaa la sameynaya marka hore waxaan ogaanaynaa dhibaatooyinka muxuu ahaayey in markaa muxuu ahaayey qodobkii hadda aan ka hadlay wuxuu ahaa inaan marka yani nuxurka cilmi baarista waxa weeyaan in loo baahan yahay oo dhibaato taalla aad xalisid dabeedna xalka ayaad u geynaysaa cidda muxuu ahaayey ay ka muxuu ahaayey ka go'do oo muxuu ahaayey hawshaa geli next please waxaan eegay muxuu 2 sano ka hor yaa waddankeena cilmi baaris ku sameeya horta lagu sameeya dalkeena yaa ku sameeya waxaan ka hadlayaa xagga caafimaadka tan waxa weeye caafimaad kaliya wey maaha muxuu ahaayey maadooyin kale maaha waxaan eegay 15 sano cilmi baaris la sameeyey waxay noqotay 1,102 muxuu ahaayey baaritaan baa la sameeyey waxaan eegay yaa sameeyey ama dadka sameeyey buxuutaas Soomaali ka mid ma ahayd waxaan ogaaday in 7 ay yihiin ay Soomaali ku jirtay ma aha inay kaligood yihiin inay Soomaalidu ka mid ahayd 93 ay ahaayeen dad ajnabi kali ah maxaa ka fahmaysaa maxayna siinaysaa marka darsigaana siinaysaa maxay tahay waxay ku siinaysaa dhowr shay ku siinaysaa koow waxay ku siinaysaa dhibaatooyinka laga hadlayo waxa laga yaabaa in adiga khuseenba oo waxa iyaga khuseeya ay tahay iyaga dooranaya laba waxay ku sheegaysaa aqoonta la qaatay dad kala qaatay adigu aqoonta ma lihid waxay kale ku sheegaysaa xilkii ahaa inay mas-uuliyiinta tusaan oo ku qanciyaan in waxa kan loo bedelo muxuu ahaayey hawlgal meesha ma taalo muxuu ahaayey landa buu degan yahay muxuu ka doonaya muxuu ahaayey garow iyo muxuu ahaayey baas ka doonaya marka waxaad garanaysaa muxuu ahaayey cilmi baarista noocan oo kale ah kow nimankii ma degana waddanka oo hadda see niman aan waddanka degan ku yimaadeen waxaan ku magacaabno safari research cilmi baarista safarka baa la dhahaa cilmi baarista safarka maxay tahay nin baa imanaya 2 bilood joogaya xogaa adigu 4 qof oo Soomaali kaleesanaya isoo urursan nabad ay bulay macsaa koox wax la ururiyay iyo meel la geeyay iyo gool daabacay iyo midna ma ogin arrintaas waxa weeyaan muxuu ahaayey waxaa la dhahaa cilmi baaristii ku salaysnayd nidaamkii isticmaalka waqtigiisii saas u ahaa weli waa socotaay